kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada shabakada codka Tolmoon waa dhismaha farshaxanka Istanbul iyo mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee loo dalxiis tago magaalada. Waxa kale oo astaan u yahay keydka taariikheed iyo waxa ay magaalada Istanbul soo martay oo kala ilbaxnimo iyo taariikh. Macnaha Hagia Sophia ayaa xikmadii daahirsaneyd marka laga soo macneeyo luqadda Greek-ga. Markii ugu horeysay waxa uu ahaa kaniisad, kadibna waxa uu noqday masaajid, kadibna waxa loo rogay madxaf. Waxa la bilaabay dhismihiisa sanadkii 532 miilaadiga waxaana la dhameeyay sanadkii 537 miilaadiga, isagoo uu dhismihiisu qaatay muddo 5 sano ah. Waxaana lagu dhisay amar ka soo baxay boqorkii Roomaanka ee Justinian-kii koowaad. Justinian ma uu rabin inuu dhiso uun keliya kaniisad waxa uu rabay inuu farshaxan dhismeed oo cusub kusoo kordhiyo xilligiisii. sidaa daraadeed waxa uu dhismaha kaniisadda u xilsaaray labada injineer ee kala ah Isidore iyo Anthemios Tralini. dhismahani waxa uu ku fadhiyay ku dhawaad 100 mitir, dhererkiisuna waa 55 mitir. qubcadda ama qaybta madaxa sare ee dhismahanina waa 30 mitir. intaa waxaa dheer farshaxanada cajiibka ee gudaha iyo dibadda ee dhismahan. muddo gaadhaysa 916 sano waxay ahayd Hagia Sophia kaniisadda rasmiga ee boqortooyada Kiristaanka ee bariga Yurub, marka laga reebo 6 sano wax ku dhow oo ay isu bedeshay kaniisad Kaatooliga kadib markii ay qabsadeen Crusadesku ama Saliibiyiintu. kadib markii ay Cusmaaniyiintu furteen magaalada Constantinople sanadkii 1453 miilaadiga oo ay ku furteen gacanta amiirkii Maxamed Faatax ama Maxamedkii koowaad. waxa uu Hagia Sophia u bedelay masjid, isagoo magaaladana ka bedelay magaceedii hore ee Constantinople una bixiyay magac cusub oo ah Istanbul. kadib waxa ay noqotay Hagia Sophia astaan awoodeed oo ay dowladdiisu leedahay. kadibna waxa si toos ah looga bilaabay aadaanka, waxaana uu noqday masaajid ay muslimiintu salaadahooda ku ogaan. waxa cajiib ah inaanu Maxamed Faatax ka tirin astaamihii Kiristaanka oo ah kuwa ilaa hadda ka muuqda. marka laga soo bilaabo xilliga 478 sano, Hagia Sophia waxa ay ahayd masaajidada ugu waaweyn ee Istanbul ku yaala. sanadku markii uu ahaa 1931 waxaa albaabada loo laabay Hagia Sophia iyadoo ay xidhnayd muddo 4 sano ah. waxaana dib loo furay sanadku markuu ahaa 1935 iyadoo ay dowladdii Turkiga ee Calmaaniyadda ahayd ee Mustafa Kemal Atatürk uu rogtay madxaf. laga soo bilaabo sanadkii 2014 Hagia Sophia waxay ahayd madxafka labaad ee ugu dalxiisayaasha badan Turkiga, halka uu soo jiitay dalxiisayaal ku dhow 3.3 milyan sanad walba. sida laga soo xigtay macluumaad ka soo baxay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee Turkiga, Hagia Sophia waxay ahayd mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dalxiisayaasha Turkiga yimaada ay daneynayeen intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 19 31 May 2014 urur lagu magacaabo Shabaab Anadol waxa ay soo qaban qaabiyeen barnaamij ay ugu magac dareen salligaaga soo qaado oo kaalay, taasoo ujeedadoodu ahaa in jamac salaad subaxa ay ku ogaan barxadda madxafka Hagia Sophia, iyagoo ay ujeedadoodu ahayd olole codsi ah kaasoo ay ku doonayeen madxafka Hagia Sophia in loo bedelo masjid. ururkaasi waxa uu sheegay inuu ururiyay 15 milyan oo qof saxiixood iyagoo dalbanaya in loo rogo madxafka masaajid, balse la taliyaha ra'iisul wasaaraha xilliga wuxuu shir jaraa'id ku sheegay in xukuumadda Turkigu ayna wax niyada u haynin inay ka bedesho Hagia Sophia sida uu hadda yahay. 10kii bishan Julaay 2020 waxay ogolaatay maxkamadda sare ee Turkigu go'aanka ah in madxafka Hagia Sophia loo bedelo masjid, taasoo micnaheedu yahay in gebi ahaanba lagu gacan sayro go'aankii Hagia Sophia looga dhigay madxaf oo uu noqonayo masaajid, welibana si rasmi ah. waxa uu saxeexay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan xafladda dib u furitaanka Hagia Sophia oo mar labaad dib u noqonaya masjid, waxaana uu carrabaabay in salaada ugu horeysa lagu tukan doono masjidka Hagia Sophia taariikhdu marka ay tahay 24 bishan Julaay. geesta kale waxaa jira wadamo dhowr oo falcelin ka sameeyay go'aankii maxkamadda sare ee Turkiga ka soo baxay 10kii bishan. tusaale waddanka Faransiiska, wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiisku waxa uu sheegay in Faransa aad uga xun tahay go'aanka madxafka Hagia Sophia loogu bedelay masjid. dhanka kale dowladda Mareykanka, wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku waxay caddaysay inay dareemayso niyad jab kadib go'aankii ka soo baxay Ankara ee Hagia Sophia loogu bedelay masjid u furan in salaadaha lagu oogo. dalka Ruushka, kaniisadda Orthodox ee Ruushku
Greegu waxay cambaaraysay go'aankii maxkamadda sare ee Turkiga kaasoo ahaa in dib loo furo Hagia Sophia halka ay muslimiintu ku tukan karaan, taasoo meesha ka saaraysa go'aankii hore oo Hagia Sophia ku ahaa matxaf. Dhinaca kale, dowladda Greegu waxay aad u cambaaraysay go'aanka maxkamadda sare ee Turkigu ay qaadatay, waxaana ay u tixgelisay go'aanka inuu yahay jees-jees aan geedna loogu soo gaban, kaas oo ka dhan ah international community-ga.